مسؤولين حزبك معارضة وطنية كبر كتب يرمان تشكل شرائط فوق تحفيز كبار كل مجال برعو waxay kaga hadleen muradda oo ay kamid ahaayeen mas'uuliin laga xiriir dhawaan xisbiga wadaniga waliba sidoo kale calaamad lagu gubay deegaanada Balanbaal iyo Qoyta isla markaana waxay eedeeyeen dusha ka huuyeen xisbiga muxaafidka kulmiye oo isagu deegaanada safar ku marayay gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer Xuseen Kaahin iyo Foosiye Qaybdii waliba gudoomiyaha garabka dhalinyarada Mustafa Suudi oo iyagu waray halkaas ka hadlay xaaladadoodii kamid ahaa oo ku qabanay shir jiraad waxa ka hadli doonaa arrimo xasaasi ah oo dhacdooyin ilaa ayaamahanba iska soo daba dhacay oo ka dhacay gobolka Togdheer way ka mid yihiin arrin Qoyta ka dhacday arrin Balanbaal ka dhacday arrin Naqsiye ka dhacday oo ay dhacdadaasi aan ku eedeynayno inay ka dambeeyeen mas'uuliyiinta xisbiga wadani xisbiga kulmiye ee heer qaran ee Muuse Bixi hogaaminayay iyo mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbiga kulmiye inay dhacdooyinkaasi iyagu ka dambeeyeen aan ku eedeynayno run ahaantii xisbiyada tartan baa ka dhaxeeya laakiin kama dhaxeeyo bulshadana laguma kasbado xarig iyo jujuub iyo xabad bulshada laguma kasbado laakiin xeelado kale iyo waji kale iyo arrimo macaan oo kale ayaa bulshada lagu marka waxaan u sheegaynaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ay sugan ee istiidanayay ee wasiirada iyo madaxda xisbiga ka koobnaa inaan ummadda lagu kasbanin xabad iyo caburs waayo waxaad arkaysaa inay iyagu door moodeen maanta inay ummadda ku kasban karaan kana xid kana xabad ku rid kana eri wartaa waxaan leenahay laguma kasbado annaga xaalka iyagu kaamaha ummadda walaalaha iyaga ee aanu ka sugayno doorashada inayna doortaan waxaanu leenahay horumar iyo barwaaqo iyo baraare iyo arrimaha maanta foolxumada ku haya ummadda oo aanu baabiino ayaanu annagu ummadda ku kasbanayno laakiin waxaanu leenahay waxa xaaraan in ummadii xabadii ay shalay ka dagaalantay war arintii gubad xariir ka dhacday ferigii faqashtii arintii gubad xariir ka dhacday ninkii jiray baa joogay ama ninkii joogay baa joogay ayay reer nasiye iyo reer Balanbaal ba xasuusteen qof kastoo reer Soomaaliland tii ayuu xasuusay waayo waxa taayirka la mariyay dad muwaadiniina oo guryahoodii iska degan ayaa taayirka la mariyay dad muwaadiniina oo guryahoodii jooga xafiisyadooda jooga ayaa taayirka la mariyay war goormo wadani noqday sidii tii faqashta loo tilmaam jiray in lagu tilmaamo waxaan leenahay xisbiyada qaranku waa isku mid ummadda way sugan yihiin laakiin cidii xun ayuunbaa xun cidii fidmo wada ayuunbaa fidmo wada annagu waxaan leenahay ummadda nabadgelyadeeda ha ilaashato ummaddu halkay maraysa iyada garanaysa ummaddu halka ay dooranayso iyada garanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Balanbaal ee dhibaatada iyo tacadiga aanay geyn iyagoo muwaadiniin reer Soomaaliyaana loo geystay ayaan maxay raali gelin iyo maxay sharaf iyo qiimeyn u diraya waxaan leeyahay Muuse wuxuu yiri maba dhalana dhowrtaysanaga Muuse maaligoon qabsan baad durba bilowday xadhig iyo dil iyo hanjabaad iyo hadii la idinkeeda leeyahay waxaan loo baahnayn waxaad kaga hadlayso Qoytana waa la maqlayay xisbigeena ninka sidaa u eega shanta farood baynu la tagaynaa waxa weeye dagaal waynu soo marnay wixii waa la garanayaa Soomaaliland uma baahna maanta dagaal iyo ruuxan siyaasad bayna dhex martay hadaynu nahay xisbiga wadani iyo hadaynu nahay xisbiga kulmiye waxa weeyaan waa inaad la kaaleydaa dadka waxaad ka iibisay iyo dadka waxaad u sheegto dagaal ha u sheegin dadku dagaal ma baahna dhagu ka fariistay waxaan kale ku sheegayaa tuulooyinka aad imanaysid 20 leeyla calaawiya dadku saarayay aad ka sii horeysiinaysa aad oranayso maxay igu soo dhaweeyay adigu rakaabkaad wadatay igu soo dhaweeyay tuulada 20 qof joogto aad 200 qof geynayso aad adigu odhanayso igu soo dhaweeyay waxa sidee dadku noqon mayso Muusow ramaxna marba farwaaraad ku rari maayo ramax waa barasaab macaaradkana u barasaaba maxaafidkana u barasaaba oo mas'uul weeyaan inuu adiga dhinaca si cad ku saaro maaha hatta haduu kala socdo inuu siyaasadiisa shaar u galiyo oo qarsado ayuu xaq u leeyahay waxaan ku sheegaynaa wadani leer baa wadata calankeeda iyo dadkeeda iyo maxay ahayd hugunkeeduba iyo reenkeedaba waa la arkaa laakiin adigu waxaad ku xisaabtamaysaa inta 20 leeyla calaawi gaad dad saarto inaad tirada iga sii horeeyo sacabka iyo tumo iga hor kaalaya wax ka soconaya taas ma aha Muusow dad samayso dal samayso waxa weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo bulshada reer Soomaaliland in ay u samraan tacadigan iyo cagajugleynta faraha badan leh iyo xadhigan uu geysanaya xisbiga kulmiye waayo waxa lagu yaqaanaa dawlad iyo xisbigeed meesha ka sii baxaysa
inay isticmaalaan tacaddi iyo cagajuglayn iyo jawaano lacaga waxaan leenahay dee way tagay kulmiye uu tagayaa in yar aynu u samirno aad iyo aad baan salaamay joogay qoyta waxaanu ka baxnay 12 magaalada Burco aniga iyo laba sarkaal oo kamid ah xisbiga wadani waxa weeye guri aan ka kireeyay xisbiga wadani ayaan nimada soo tusayay markii aanu meeshii tagnay calaamadii xidhnay ee abaanay ahayd koodii iyo barkii meelaha oo aanu doonaynay inaan magaalada Burco ku soo noqono ayaa gudoomiyaha ramaax oo ka soo noqday degmada Sheekh uu noogu yimid tuuladii degmada qoyta wuxuu dhammaan calaamadan hala dejiyo waxaan ku yiri gudoomiye calaamadan aniga gurigan ay maanta lagu xidhay waa laga kireystay waxa iga kireystay xisbiga wadani wax inamada iga kireystay waa kuwa markay intaas u dhacday labadiina waa la xidhay دبت هالكاسي حاولت ديالنا نيجو قدام بيس. الصلاة والسلام على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نودي شوي مهسيين دعوين كحسبك كذا عاي قبل كيات كوجه هذلين حسبك وحسب قرن حسبيه قرن كانوا حلو سميون حكمك أي نكون قاعدنو وما يناس سميسانين نسكر ريحنو وما يناس سميسانين دربان قبيلات كتنو وحلو سميسانيون كرسي يوم معمول كدلك لجوه وناتشيو أنا مدبان كهلا يا قضب qodobkaas waxa weeye calamaanta iyo astaamaha xisbiyadu waxa weeye waa sharci shuruucda dalka ayaa xeerar baa dhigaya xeer foodiin ayaa waliba dhigayeen inay xaaraan tahay xisbiyada calamaantooda iyo astaamahooda loo taabto laguna gafo kulli guddiga anshaxa waxaan ugu baaqaynaa inay daba galaan toddobaadadii ugu dambeeyay diiwaangelinta gobolka Togdheer ka bilaabantay waad arkayseen tacadiyada loo geystay tacadiyadii ka dhacay gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil inta u dhaxaysa khasaaro badan baa ka dhacay oo astaanta caalamka haday biratay haday xafiisyatay ilaa balanbaal ilaa nasiyo loogu geystay taageerayaasha xisbiga wadani waxa kale aan leeyahay maxkamadaha iyo qolada tacadiyada iyo dambiyada iyo hay'adaha xuquuqaadamaha in tacadiyada iyo jirdilka iyo xabadaha dadka lagu soo dhuftay si dhow la socdaan maamulka gobolka Togdheer howlaha uu ka wado gobolka Togdheer oo ku tacadiibaya taageerayaasha xisbiga wadani Ahmed Jaamacadan Ahmed Digro telefishinka caalamiga SBC Burco